anigu Jubbaland baan ka tirsanahay. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah jaaliyadda Jubbaland ee ku dhaqan magaalada Melbourne waxaana lagu taageeray dhamaystirka maamulka Jubbaland ee dhawaan baarlamankiisa la dhisay. waa hambalyeenta maamulka oo dhinac walba aan uga hambalyeynayno in Ilaahay hawshooda u fududeeyo maadaama gobolku ahaa gobol ka dambeeya gobolada Soomaaliya. marka waxaan ku dhiirigelin lahaa kulli hawsha hadda u bilaabatay qolyaha maamulka. ilaahna waxaan ugu baryaynaa in Ilaahay ku guuleystaan dadka Soomaaliyeedna ay cadaalad ku dhaqaan. marka fiiriso waxyaalaha maamulka uu keenayo waxa ka mid ah waxa weeyaan iskooladii baa shaqeynaya, isbitaaladii baa shaqeynaya, wadooyinkii baa shaqeynaya, nabadii baa shaqeynaysa. waxyaalaha mataqaanaa yacni yaryar ee maamulka uu la yimaado marka ugu horeysaba waxa weeyaan in meeshii ay qofkii maciishada abuurayay iyo qofkii gadanayay iyo qofkii wax kala sameynayay ay helaan medium ay ku wada shaqeeyaan. midda labaadna waa midii waxtarka meesha anaga ka nimi oo Kismaayo ah inaan caawino iskuulada, inaan caawino isbitaalada, inaan caawino wax alla waxay dadkaas masaakiinta ah meesha ku nool ah u qaboodi karno maanta waqti u helay inaan siino. Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland sida injineeradii dadkii ugu horeeyay sheegeen muddo gaaban buu fadhiyaa. warnina kan 4 sano muddo gaaban nala joogaya adeer waxaan u shaqeyno dadka aan u shaqeyno inta kaliya ayaa Dr. Cabdiraxmaan noo keenay inaan ku taageernana waajib. waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed ee dalkii joogta hadday dhalinyaro noqoto, hadday waayeel noqoto, hadday in maamul sheeganaysa ay noqoto, in wadankoodii yahay, dadkuna dadkoodii yahay. hooyo Soomaaliyeed haddii wiilkeeda la dilo la yiraahdo tuhuma lagu dilo, tuhuma lagu soo qabtay, يعني waxa weeye hooyadii baad gablamiseen dalkii baad gablamiseen ummad kale ayaa soo galaya meeshii wiil adinku aad leedihiin adishaan ummad kale ayaa imaanaysa. sidoo kale waxaa lagu casuumay mas'uuliyiin kala matalaysay maamulada dalka iyo waliba dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. marka anigoo ku hadlaya afka jaaliyadda DDSI ee Australia waxaan si aad iyo aad u diiran oo farxad leh aan u soo dhaweynaynaa sida loo soo dhameystiray baarlamaankii dawlad goboleedka Jubbaland. aad baan iyaan u taageeraynaa. anigoo ku hadlaya magaca Puntland Diaspora of Australia waxaan leenahay waa u baahnaan qolo kale oo aanaguna aan iskaashano marka waxaan leenahay soo dhawaada walaalayaal. anigoo ku hadlaya magaca South West State waxaan leenahay Jubbaland waan soo dhaweynaynaa horumarka ay gaartay iyo nidaamka ay samaysatay aad baan ugu faraxsanahay maadaama aan nahay dad darisa oo isu dhow oo isla dhashay aan xuduud kala lahayn. dhanka kalena waxaa munaasabadan daaha looga rogay ururka Jubbaland ee dalka Australia oo horaantii sanadkan la dhisay. Jubbaland Diaspora Association markaas aasaasay wax kale uma aan asaasin wacnaheedu wuxuu ahaa bal gobolkaas gobolada ka dambeeya sida baan wax ugu qabanaa. haddaad hanti gashitid, haddaad dhar u dirtid, haddaad daawo u dirtid, wax walba horumarku ka mid yahay. munaasabadan ayaa waxay ahayd mid loogu dabaaldegayo dhamaystirka maamulka Jubbaland oo golihiisa baarlamaanka la dhameystiray. Ibrahim Umar Baafe, wararka Universal, magaalada Melbourne, dalka Australia.